Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda aan jeclahay meel kastoo adduunka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Ikram Beauty New haddii aan ugu cusub tahay soo dhawo haddii hore noola joogtana welcome back soo dhawo subscribe ka taawo kamalaalkana taawo si aad la socoto fiidaasha xiga markasta aan soo geliyo aad ay u mahadsantihiin asxaabteeda maanta waxaa inii wada saliidan abaya ayaa dhahday saliida kasoo hadal waxtarkeeda maasha Allah meeshan jooga ay joogtaa waxay dhahdaa baayada oo Soomaali joogta ayaa ii sheegtay sidaas darteed ayaan kaaga soo doontay marka isku meel ayaan joognaa ay imaada insha Allah marka saliida janaalka hore ay ku jirtaa iyadoo faahfaahsan iyo wixii laga sameeyo si markaas ay custom yeelatay dad badan ayaa ku soo xirmeen hadda maadaama janaalka la xiray oo saliidiina ee dadka waxtarkeeda ay rabaan sida uu ogaadaan saliida maasha Allah horta hore waxay u fiican tahay kow timaha ka daadanayo timahada hadii ay ka daataan hal caag kow ah isticmaasho adiga isbuuca labaad waa ka dareemaysaa timaha stop ay ka dhahayaan daadashadu way ka joogsanaysaa halka caag hadii aad dhameyso timahada ay weli ka daadanayaan lacagtaada waa ku celis timaha 100% daadashadu way ka joojinaysaa hadii cilad aysan ku haynin dhiig la'aan oo timahada u jira ay kaaga daadanaynin dhiig la'aan hadii ay ku hayso timaha way ka daadanayaan hadii aad fitamiinka jirkaada ka maqan yahayna way ka daadanayaan marka waxaa sameysaa adiga quraacdo kale ukun cun hadii aad ukun jecleen koosto iyo waxaas ayaa la cunaa qudaarta ayaa la badsadaa biyaha cabitaankana aad ayaa loo badsadaa biyaha caadiga la cabayo biyaha caadiga wuxuu ka saacidayaa jirkaada inuu timaha waxa dhan oo adiga caafimaadka ay u roon tahay soo marka biyo caadi qof la farayo malaha dadkana way ogyihiin biyo caadiga aad iyo aad muhiim ugu yahay jirkaada timahana qaasatan marka hadaan kasoo gudubno timahaaga hadii ku bixi waayeen way ku baxayaan haweenka ayaa ku masaajeynaysaa haween walba timaha ku masaajay wax yar adiga ay u baahan tahay saliid saad ay u agtahay halka caag 2 bil ayuu ku haynayaa soo marka aad ay u adag tahay marka waa inaad dhaqdhaqaaleysata ayaa fiican oo 2 bil ay ku ha ka buuxin timahada uma baahno wax yar ayaa faraha marinaysa oo ku masaajeynaysa timaha saad uga masaajay timahaaga ilaa 5 daqiiqo masaajay qofka bini'aadamka 1 daqiiqo iska day 10 second markuu masaajeynayo wuxuu isku maleeyaa inuu 5 daqiiqo masaajeynayo waa daaleysa marka saacada time ka saar adigoo time ka fiirinayo masaajay 5 daqiiqo markii la gaaro iska daa 10 daqiiqo hadii aad masaajay karto maalintii 3 mar timaada hadii aad masaajay karto aad ay ugu fiican tahay laakiin hadii aad masaajay karin habeenkii hal mar masaajay timahaada isbedel badan ayaa ka dareemaysaa durbadiiba sida u soo baxaan ay kugu dheeraadaan waa dareemaysaa hadii aanin tahay oo timaha bidar ay ka gashay sawirka waa kan meeshan ayaa soo saaraya wiilasha bidarta oo gali rabto aad ay ugu fiican tahay timaha way ku soo bixinaysaa aboobahan 4 bil ayuu isticmaalayay way ku soo baxday adiga laba caag camal ayuu isticmaalay timihiisa oo jeedi meesha marayaan maasha Allah 100% marii karo timaha dhan oo qof oo yacni timaha ka duulay oo timaha soo bixinay laakiin timihiisa sidaan ay ahaayeen sidaan ay noqdeen 4 bil ayuu isticmaalay insha Allah been ma fiicno inaad hal maalin sidaan ugu soo bixin marka wixii runta ayaa fiican in la sheego mid kale tarwaanay wada saliid special ayaan ka dhigay waxaan special uga dhigana wax kale tamaahan dad cusub ayaa ugu soo biiray dad badan ayaa la soo xiriiray dad badan ayaa jeclaadeen maasha Allah qaasatan reer Muqdisho reer Hargeysa maasha Allah marka waxaan sameeyay discount hal xabo qofkii gato hal xabo free ayuu helayaa adiga waa inta isbuucan hadii ay ku dhaafto kadib sideeda halka xabo qiimadeeda ay ku soo noqonaysaa oo halka xabo free ah waa laga joojinayaa waa ka asxaabay sidaas ula socda hal xabo hadaa gadato hal xabo free ayaa leedahay qiimaheedana tan lambarkaas ka wac ka weydiiyo qofka ka ogow insha Allah hadii ay u baahan tahay waa idinkaas marka sidaas ayaan isku ognaanay timahaaga maasha Allah nafaqo iyo waan fiican tahay isbuuci timaha inaad nafaqo iska mariso waajib ay kugu tahay sababtoo ah timahada hadii u baahan tahay inay qurux ku noqdaan maasha Allah ku noqdaan nafaqooyin badan ayaan soo galay sida nafaqayaasha dadka way dhibaysaa tirada badan la marsanayo bashasha timaha aad ay u bixisaa hadii aad bashasha aad ka gaari karin waxaa sameynaysaa kabsar caleen ayaa shiidaysaa kabsar caleenta badarka lagu darsado saliidan ayaa ku darsanaysaa timaha ayaa marsanaysaa saacada ay ku joogaysaa waa iska dhaqaysaa
waxaa kaloo sameynaysaa mayonnaise ukun saliid saytuun ayaa isku daraysaa timaha ayaa marsanaysaa waa iska dhaqaysaa waxaa kaloo marsan kartaa biyaha bariiska dabka ayaa saaraysaa biyihiisa ayaad isticmaali kartaa haddii kale biyaha bariiska habeenka ayaa la dhigaa waa isticmaali kartaa biyaha xulbada sidoo kale waa isticmaali kartaa waxyaabo badan ayaa jiro oo timaha aad iyo aad u bixiyaan oo timaha maasha allah kaaga dhigayaan haddii aanad tahay nafaqada ugu fiican oo marsanaysid saliidda marso nafaqo ukun isbuucii 2 isbuuc kadib hal mar wuu marsan karaa qofka ninka ah nimanka khaasatan waxaa fiican timahooda inay maalin kasta shaambo aysan ku dhaqin timaha maalin kasta markaa shaambo ku dhaqdo madaxa wuu qalalaya timaha markay qalalaan saliidda naturalka ka dhameyso tintii way daadanaysaa heer inay daadato ee bilaabaysaa nimanka timaha ayaga bidartis galiyaan naagaha 100% adi waxay ku dhacdaa 10 iska leh 10% iska leh way ku dhacdaa laakiin nimanka 50% timihii dhan way ka dhamaadeen qaasatan dadka aniga agteena ku nool wadanka joogo tima meesha ma ku hayaan way ka dhamaadeen ayaga dhan bidaara wada gashay soo marka bidaarta waxa keenaya waxa waaye shaambada oo maalin la keeno timaha lagu dhaqaayo stress ka badan oo qofka stressayo marka insha Allah stress inta iska dhaaf karto inaad iska dhaafto inaad sheeg marka stress leed quraan daaro aqoonta quraanka dhageyso stresska uu ka duulaya marka timaha naturalka fitamiinka ka dhameenin qofka markuu rabo daawo ahaan markuu wax u isticmaalayo timaha uu dhaqi karaa maalin kasta laakiin timaha hadii natural maalin walba aad dhaqaysid timahaadii meesha ay ku dhamaanayaan marka saliidda naturalka ka dhameenin insha Allah isbuucii 2 mar ama hal mar ayaa timaha la dhaqdaa intaas ay kugu filan marka waa idinkaas saliideed waata waxaa laga sameeyay 12 saliidood meesha ay ku qoran tahay saliidooyinkaas dhan ayaa laga sameeyay maasha Allah waana saliido quality la 100% ah saliido natural ah saliido oo kiimika dhan ma ahan saliido kiimika la dhan ma ahan saliid cold pressed waaye oo yacni dabiici natural ah saliid heat dhan oo dab gasho dhan ma ahan saliid natural ah lagu soo bixiyay waaye maasha Allah saliida essential oil kan way ku jiraan marka ha moogaanin insha Allah wadankeeni waan geeyay Soomaali waan geeyay Hargeysa waan geeyay Kenya dhaxay ku soo jirtay dadkii u baahnaana waa kala fogaana laakiin insha Allah asxaab kale badan ayaa meeshan ka helay insha Allah ayadana way iimaanaysaa way soo socotaa marka insha Allah ha moogaanin ayaan leeyahay marka Janice waaye hadii aad ku guuleysateen insha Allah وين سocon doontaa insha Allah wax oo hal isbuuc bis ku harayo maahan marka weegan insha Allah yuusan ku dhaafin weegan wax ka bilaado stop maanta waxa waa sabdigeeda kale inta laga gaaray insha Allah waa hal week Soomaha jimcaha ay ku egtahay insha Allah soo socdo marka asxaabay waxaan idin leeyahay insha Allah inay ka faa'iideen oo saliidda nabata sawaa idin fasiray waxay idin tarayso habeenka ayaa lagu masaajistaa timaha hadaarta waa iska dhaqay hadaarta ku haysanaysaa marka adiga timaha iskaga heeso si maalin walba aadan u dhaqan timahaaga waa idin sheegay marka insha Allah nafaqooyinkana waa idin sheegay channelkay gadaal u gal inta nafaqo oo rabtid insha Allah nafaqooyinkana waa soo badanaa maadaama channelku cusub yahay insha Allah wax badan oo ku soo kordhi doona channelka insha Allah saliidahana insha Allah saliidaha carruurtana waa soo wada waa soo tijaabinaa wata dhahay beebiyaasha carruurta saliidoodana waa soo saar raba saliidana carruurta wixii ka yar 3 sano oo lama marin karo sababtoo ah carruur yar oo allergy qabta ayaa jirto oo saliid walba isticmaali karin la isku dadaray marka ilmaha saliidaha loo marnayo waxa ku fiican saliid qumbo saliid saytuun saliid macsaro saliidda baybiga isnaaf intaas ka badan ha u marin carruurta way yar yihiin haduu timaha ilaa u soo bixin alxamdulillah haduu ilaa u soo bixinin alxamdulillah biyaha bariiska u mari biyaha kabsar caleenta u mari ilmaha raska ah intaas ayaa ku filan marka maasha Allah hooyooyin badan oo dadaalayo group ayaan hanay maasha Allah groupka jimcihi ayaa wax la soo dhigaa insha Allah hadii aad inaad ku soo birto commentiga hoos iigu soo qor linkiga ayaan ku soo dirayaa groupka timaha daarta inaad ku soo birtan groupka timahana gabdho kaliya ayaa loogu talagalay wiilal ma ku jiraan hadii aad channelkayga ka heshay like share subscribe hanaga ilaabin asxaabtaada kale tan u share garay inay ka faa'iidaan dad saliid raba ay jiraan dad bidar qaba ay jiraan ya walaalaha oo kale inay kamid yihiin marka u share garay ayaan leeyahay insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan isku ognaanay saliideedana magaceeda u jeedin Ikram Beauty ay ku qoran soo marka mac salaamo